ahdood ka qaadan jirtay si ay ilmaheega u korsato. xaaskaaga ayaa maalin walba dili jirtay, waa ayna u cagajuglayn jirtay. maalmaha ka mid ah ayaa xaaskaaga waxay ka soo turtay haweenaydii jaranjarada ugu sarraysa. isla haweenaydii waxaa ku furmay dhiig maskaxda ah. askarta ayaa adigu ka difaacaysay haweenaydaada, waanad ku been abuurateen, waxaanad ka dhigteen qof tuugada taasoo lacagtiinna xaday. idinku waxaad u isticmaasheen magaciinna iyo hantidiinna, laakiinse nasiib daro 3 maalmood kadib haweenaydii waa ay dhimatay. faris waxauu bilaabay inuu ooyo, waxa uuna dhahay, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal, waa mar kale iyo qaybtii saddexaad qisadayda. waxaan ka codsanayaa intaan qisada bilaabin kanaalka subscribe saarto haddii aad weli ku soo biirin. waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa asxaabtan ugu soo biirtay maalmihii ugu dambeysay. qaybihii hore qisadayda waxaan ku soo aragnay aniga oo la kulmay ninkii Saalax ahaa. Saalax waxa uu sheegay wax walba oo ku saabsan sirta uu iga hayay, isla markaana waxa uu dhahay gurigaaga waxa yimaada subax kasta gaar marka aad shaqo tagto. warkaas markaan maqlay aad ayaan u naxay. waxaan isku dayay in aan haweenaydan daba galo. waxaan isku dayay inaan ogaado gaariga maalin kasta xaafadeeda yimaada sirta ku duugan. isla markaas maalinta dusha ayaan kala socday. gaari ayaa keenay, waxaan ka soo degay haweenay taasoo dhar madow xiran. isla markaas waxaan daba galay ninkii darawalka ahaa ee goobta keenay. waan qabtay ninkii, waxaana weydiiyey su'aalo fara badan. yuu yahay gaariga aad maalin kasta guriga keento? isna waxa uu dhahay aniga waxay la heshiiyeen kaasoo igu leeshiin lacag fara badan isiinayo, isla markaana aan subax kasta geeyo gurigaas waqtigaan aan ka soo qaado. ninka darawalka waxa kaloo ii sheegay qofkan uu maalin kasta guriga geeya inuusan ahayn haweenay, laakiinse uu yahay nin raga kaasoo soo xidha dharka dumarka. anigu isla markaan maqlay sheekadaas aad ayaan u naxay, waanan xanaaqay. qisada qaybta saddexaad halkan ayay ka bilaamaysaa. waxaan ku dhahay ninkii darawalka ahaa, waxaan u baahanahay inaad dib ila noqoto ilaa gurigaan hor tagno, isla markaasna haweenayda ay sugnintay soo baxayso. waanu taagnayn guriga horteeda, laakiinse nasiib darro haweenaydu waa ay soo bixi weyday, aad ayayna u soo habsaantay. anigu waxaan weydiiyey ninkii darawalka ahaa, ma jiraa lambar aad ka haysaa si aan u wacno isla markaasna ay u soo baxdo? ninkii darawalka waxau dhahay maya, wax lambaran kama hayo, anigu maalin kasta xaggan ayaan yimaadaa, isla iyaduna degdeg ay u soo baxdaa, laakiinse maanta wax ka qaldan garan maayo. anigu markaas waxaan ku fikiray in aan booliiska waco, kaas ayaan u arkay xalka ugu wanaagsan ee aan ku ogaan karo waxa ay maalin walba haweenaydu iga qariso iyo ninkan yimaada goobta waxa uu yahay. isla markaas waxaan tegay saldhiggii, waxaanay soo raacay koox dumara kuwaasoo baaritaan ku samaynaya guriga. waxay yimaadeen xaafadaydii, waxayna yimaadeen haweenaydii hurda. guriga ayayna baadheen dhinac walba, laakiinse nasiib darro cid way ka waayeen. anigu waxay igu dhaheen markaas guriga cidna kuma jirto, waa nadiif. anigu waan yahay, waxaana dhahay taasi ma dhici karto, aniga ayaa indhaheeda ku arkay isla marka uu soo gelayay qofkaas haweenayda ninka. isla markaas waxay ugu dhahay ninkii askariga ahaa, mar waxaa leedahay haweenay ii ahayd, marna nin buu ahaa, adiga maxaa kaa khaldan? anigu waxaan ku dhahay nin ayuu ahaa kaasoo ku labisay dharka dumarka. isla markaas askarigu wuxuu iga codsaday in aan cabashidiisa halkan uga tago si loo dhammaystiro. waqtigaas waxaan isku dayay in aan raadiyo ninkii darawalka ahaa, laakiinse nasiib darro waa uu baxsaday. waxaan galay gurigayga, haweenayda ayaa soo booday, waxayna dhahday maxaa dhacay? askartu maxay ka samaynayaan gurigeenna? isla markaas waxaan dareemay haweenaydu inay isku dhexyaacsan tahay, waxna ay ka khaldan yihiin. askartani waxa u yimaadeen baaritaan, nin ayaa soo galay gurigeenna ku labisan. waa ay yaabtay, waxayna tidhi maxaad ka hadlaysaa? sidee ku dhici kartaa? waxaana isla markaas indhahee ka arkay inay aad u naxsan tahay. wakhti yar kadib waxay soo wacay ninkii sixiroolaha ahaa, waxauna igu dhahay Fahad, waan ka xumahay, run ahaantii aad ayaan uga xumahay, haweenaydaadu aad ayay kaaga maskax badan tahay. ninkii gurigaaga soo galay waxay ka saartay albaabka dambe, iyada ayaana ku caawisay in uu baxsado. anigu isla markaas waxaan ku dhahay been ayaad sheegaysaa, waxaanad rabtaa inaad ku haadirto aniga iyo xaaskayga. waxuu dhahay may, xaaskaagu miskiin ma ahan, ma aysanna hurdin, laakiinse wax walba iyadaa ka dambaysa. waxuu ugu dhahay haddii aad u baahan tahay caddaymo fara badan, waxaad fiirisaa kaamarooyinka guriga aad ku xidhay, isla kaas ayaa wax walba ka ogaanaysaa. maad ilowday Fahad inaad guriga ku xidhay kaamarooyin? isla markaas
waa ugu jiray moobilkii. wax walbuu sixirooluhu sheegaya waa sax. waxaana ka fikirayay waxa aan samayn doono iyo sida wax u dhacayaan. waxaan baaritaan ku sameeyey kaamarooyinka aan guriga ku xidhay, kuwaasoo si qarsooniya igu xidhnaa xaaskaygu aysan ogeyn. waxaan aaday kombiyuutarka si aan baaritaan ugu sameeyo kaamarooyinka u xidhan goobtaas. kaamaradu waxa ay duubtay wakhtiga ay soo gelaysay haweenayda guriga. isla markii albaabka sidaa uga soo gashay, kaamaradu waa isjartay. waxaana halkaas ka cad inuu xadhigga jaajarka qof jaray. taasna waxaan shaki weyn ka qabaa in ay xaaskaygu sidaas samaysay. xaaskaygu wax walba way la socotaa, iyada ayaana sidan samaysay. ninka sixiroolaha waa uu saxan yahay, wax walbana runta ayuu ka sheegayaa. waxaan ku fikiray haweenayda inaan ka aargoosan doono wax walba ay igu samaysay noloshayda. waxaan ka soo baxay guriga, waxaana u socdaa meeshii aan ku ballansanayn, goobtii moofada, halkaasoo haweenaydii igu sugayso. isla markaas waxaan wadaa lacagtii faraha badnayd ee boorsada ku jirtay. lacagtu waxay dhan tahay $100,000. waxaan goobta ku arkay haweenay aad u da'yar, taasoo dusha igala socota. waxayna igu dhahday kaali Fahad. waan u tegay xaggiga ayaana u dhaqaaqay. waxay tidhi meel lacagtii. waxaan ku dhahay waatan lacagtii ee iga qabso. waxay eegtay lacagtii, isla markaasna waxay siisay caagad daawo ku jirto. waxayna dhahday tani waa daawadaada, si degdeg ah ayayna iga baxday. anigu aad ayaan u naxsanaa wakhtigaas. talow maxaad kala kulmi doontaa waan islahaa daawadan. wax yar kadib waxay soo wacay ninkii sixiroolaha ahaa. waxauna dhahay Fahadow daawada waad furaysaa, koob ayaadna ku shubanaysaa, isla markaasna waad cabbaysaa. bacdeen waxaad gelaysaa qolka hurdada, isla markaas waa seexanaysaa. markaad kadibna waad caafimaadaysaa. wax walbana halkaas ayay ku dhammaadeen. anigu isla markaas waxaan tegey gurigii. waxaanan arkay haweenayda aad ii soo fiirinaysa. haweenaydu waxay u muuqataa inay sir qarinayso ama ay wax ka cabsanayso. waxaana isweydiinayay haweenaydaad maxay kugu noqotay cadaabta adduunka lagu marnayo. waxaan furay daawadii, laakiinse urteeda aad ayay u xun tahay. isla markaasna waan cabbi daawadii. madaxa ayaa aad ii xanuunay. waxaanan u soo dhaqaajiyay anigoo aad u ludaya xaggii hurdada. waan seexday, laakiinse wax yar kadib waxaan arkay anigoo isbitaalka dhex jiifa. wakhtigaas madaxa ayaa aad ii xanuunayay. waxaana si kays soo arkay in aan qacmaha ka xidhanahay. isla markaas waxay ag fadhiyay askari. waxaana dhahay askari see wax u dhacayaan, maxaana goobtan laygu soo xidhay. waxa uu dhahay intuu soo kacay, ma ogid miyaa nacasiho waxaa samaysay iyo waxaad halkan u joogto. isla markaasna waan qayliyey. waxaan dhahay maxaa dhacay. waxa ugu yeedhay dhakhaatiirtii, waxayna igu dureen daawada lagu hurdo. anigu isla markaas waan seexday. saacado badan kadib waxaan si kays soo arkay aniga oo goob kale jooga. goobtani maaha goob dad hagaagsan ay joogaan. waxaanan fiiriyey dharka uu xidhan yahay dhakhtarku. waxaanan ogaaday in aan dhex joogo dhakhtarka waalida. kalkaaliyaha ayaa ii yimaaday, waxuuna ii kaxeeyey dhanka booqashada. isla markaasna wuxuu dhahay abukaatahaga ayaa kula kulmaya. abukaatahaygii ayaa meesha fadhiya. isla markaasna waan fadhiistay. waxaanan weydiiyey su'aal, mudane Anasow maxaa dhacay, halkan maxaa laga keenay. Anas waxau dhahay aamus, yaysan dadku ina maqlin, hadalkan hoos u dhig. isla markaas waxaad matalaysaa sidii nin waalan oo kale. maxaa yeelay warqadda waxaan ku qortay in aad waalan tahay adigu. maxaa dhacay oo saa u samaynaynaa sabab see wax u jiraa, bal waxay sheeg. war adigu ma ogeyn miyaa inaad xaaskaaga dishay. adigu shalay xaaskaaga ayaa dishay. warbixintana waxaan ku qoray in aad waalan tahay, maskaxdana ka jiran tahay. waxaana ku qasban tahay inaad matasho inaad waalan tahay. waxaan rabaa anigu in aan kaa badbaadiyo dilka toogashada ee maxkamaddu kugu xukumi doonto. isla markaas waa inaad samaysaa sida aan ku dhaho samee. mid ka mida deriskaaga ayaa booliska soo wacay. isla markaas goobta gurigaaga waxaa yimaaday askar fara badan. waxayna arkeen haweeneyda oo si xun loo dilay. isla markaas adigu gacanta midi ayaad ku haysatay. waxaabaad isku dayday inaad askarta mid ka mida disho. anigu aad ayaan u naxay. waxaan dhahay maya ma sameyn anigu sidaas, waxna ma aasan dilin. waxau dhahay ninkii abukaataha Fahadow sidaas waa samaysay. wax walba oo caddima waxaa laga soo helay gurigaaga kaamarooyin ku xidhan, kuwaasoo duubay. adigu isla wakhtigaas waxaad ku jirtay jikada adiga oo si cabsila u socda. waxaanad soo qaadatay midi. isla markaas xaaskayga ayaa dishay. waxa uu tusay isla markaas sawirada dilka ee xaaskayga. aad ayaan uga naxay. waxau igu dhahay wax kastoo caddayma ah gacanta booliska ay ku jiraan. anigu waxaan dhahay maya waxaan lagu xidhay kaamarooyinka si aan xaaskayga u ilaaliyo. abukaataha waa uu iga dhaqaajiyey. anigu isla markaas goobtaydii ayaan fadhiyey. waxaana sugayey inta iga imanayaan kalkaaliyooyinku. anigu waxaan isweydiinayey wax kasta waxaa u sababa ninka sixiroolaha. waa uu iga qosliyey, waa uuna iga oohiyey.
anigu waqtigaas aad ayaan u ooyayay. dhibaatadan imaraysa isaga ayaa u sababa. waxaa isweydiinayay maxaad u rumaysatay. isaga ayaa noloshaydii kharribay. waxa uu ka dhigay noloshayda mid mala awaala iyo dhalanteed ku dhisan. isaga ayaa daawadaysiiyey. waxay iga soo dhex gashay kaalkaalisada. waxayna igu dhahday waxaa ku yimaaday mid ka mid a asxaabtaada kaasoo ku soo booqday. waxaa si keysii soo afweysay qof. waxauna igu dhahay Fahad ha ooyin, wax walba waanay soo dhammaadeen. anigu isla markaas wejiga ayaa kor u soo qaaday si aan isaga u arko. waxaan arkay nin dhallinyaro oo soddomiye aan ku qiyaasay. waxaan ku dhahay adigu yaa tahay. waxa igu dhahay hadalka xitaa ma soo xasuusin miya. anigu waxaan dareemay in ninkani hadalkiisuna igu cusbayn. wuxuu dhahay anigu waxaa la dhahaa Faris, waxaanad ii taqaanaa ninka sixroolaha ahaa. waxaan ahay ninka kugu ciyaaraya isbuucan oo dhan. anigu waxaan dhahay ma dhici karto, sideed ku tahay adiga. waxa uu dhahay waxaan isticmaali jiray barnaamij aan soo dejistay kaasoo aan kaa soo wici jiray. anigu waxaan isaga dhigi jiray qof Afrika kaa soo wacaya, laakiinse lamarkayga caadiga ayaan kaa soo wici jiray. applicationka aan soo dejistayna waxa uu i fududaynayaa in aan dowlad kasta nambar ay leedahay isticmaalo. xanuunka ku hayana waqti dhow ayaan ogaaday. daawada uurka laga hortago taasood ka heshay musqusha martida, taasna aniga halkaa dhigay. korontada leedhkana aniga ayaa jaray waqtigii kaamarooyin guriga ay shaqayn waayeen. waxuu bilaabay inuu aad u qoslo. waxau dhahay qofkii gaadhiga saarnaa aniga ayuu ahaa. aniga ayaa dharka dumarka ku soo labistay. wakhtigii aan gurigaaga tegayey aniga ayuu ahaa qofkii albaabkayga furan. xaaskaaga ma aysan ahayn, laakiinse wuxuu ahaa waardiyaha guriga. kaasi aad ayuu idiin necab yahay idinka, weliba xaaskaaga aad ayuu u necbaa. aniga isaga ayaa isaacidi jiray. waxaan soo geli jiray xaafadaada, isla markaana waxaan fadhiisan jiray qolka waardiyaha. halkaas markaan fadhiyo saacado fara badan waxaan iskaga soo bixi jiray gurigaaga. isla deriskaaga Saalax aniga ayaa kuu sheegay. Saalax subax kasta wuu eegi jiray, waa uu naga shakisnaa. aniga qorshahaygu waxuu ahaa in aad adigu ka shakido xaaskaaga, saasna aad ku nacdo, isla markaana aad moodo maalin walba inuu nin u yimaado xaaskaaga. laakiinse kaasi qorshahayga ayuu ahaa. Saalaxna dusha ayuu igala socday. xitaa waqtiga askartu ay aqligaaga baadhaysay anigu waxaan ku jiray qolka waardiyaha god ka dhex samaysan. isla markaad baxdayna waan soo baxay. waxaad aaddaa adigu meesha moofada ee ruudhida lagu dubo. halkaasna walaashay ayaa kugu sugisay si aan arrinteeda u fashilmin. adiga waxay ku soo siisay daawo, taasna waxay ahayd daawada maandooriyaha. isla markaasna waxay kugu qasbaysaa inaad wax kasta samayso. anigaa u sababa inaad xaaskaaga nacdo, isla markaana aad disho adigoo maskaxaadu maqan tahay. anigu markaas waxaan bilaabay inaan ooyo. waxaan weydiiyey su'aal, maxaad sidaa u samaysay Farisow? maxaan kaa sameeyey oo dembiya? waxau igu dhahay ma xasuusataa haweenaydii shaqayn jirtay 3 sano ka hor, taasoo weliba lacag aad u idinka qaadan jirtay si ay ilmahayga ugu korsato. xaaskaaga ayaa maalin walba dili jirtay, waa ayna u cagajuglayn jirtay. maalmaha ka mid ah ayaa xaaskaaga waxay ka soo turtay haweenaydii jaranjarada ugu sarraysa. isla haweenaydii waxaa ku furmay dhiig maskaxda ah. askarta ayaa adigu ka difaacaysa haweenaydaada, waanad ku been abuurateen. waxaanad ka dhigteen qof tuugada, taasoo lacagtiinna xaday. idinku waxaad u isticmaasheen magaciinna iyo hantidiinna, laakiinse nasiib daro 3 maalmood kadib haweenaydii waa ay dhimatay. Faris waxau bilaabay inuu ooyo. waxa uuna dhahay ma taqaanaa waqtigaas haweenaydaas carruurteeda ay u shaqayn jirtay, laakiinse wiilkeega weyn xabsi ayuu ku jiray. miskiintaas waa dulmiseen, kiiskiina halkaas ayaad ku soo xidheen. ma taqaanaa anigu ciddaan ahay. haweenayda aad saa u gasheen hooyaday ayay ahayd. anigu isla waqtigaas 3 yaal ayaannu ahayn. ma aanan haysan aabe, xitaa hooye ma aanan haysan. maxaa yeelay hooyaday waxaa sababa dhimashadeeda xaaskaaga, adiguna waad ku garab siisay. xaqana waad u hiilin weyday, waana dulmisay hooyaday. Faris waxau bilaabay inuu aad u ooyo. isla aniguna waan la ooyay. waxaana xasuusanayay hadal walba uu dhaho. waxaan ogaaday inaan miskiintaa dulmiyey. waxa ugu dhahay Faris anigu maanta xaqii hooyada waan kaa qaatay, isla adigana dil ayaa ku sugaya. anigu waqtigaa hooyadii dilaysay xabsiga ayaan ku jiray, laakiinse maanta waan kaa guulaystay. qorshahaygiina wuu ii hirgalay. waxaan ku bedelay nin sixroolaa, laakiinse wax kasta way ii hagaageen. haddana adiga dil ayaa ku sugaya. waa uu iga dhaqaajiyey. waxaan ogaaday dulmiga maalmaha ka mid ah geystaa inuusan ka harin nolosha inta aad nooshahay. dembiga aan maalintaa galay in maanta la iga jaray. isla markaasna aad ayaan u qayliyey. waxaan dhahay waardiyaal, ninkan ayaa igu sababay inaan xaaskayga dilo. qabta ayaan dhahay, laakiinse isagu
si xarago leh ayuu iska soo baxay xaqii hooyadiisna waa uu dhacsaday aniga isla markaas waa lay qabtay dhakhaatiirta ay qabatay isla waxay igu dureen irbadda hurdada qisada Fahad halkaas ay noogu soo dhamaatay asxaabta qiimaha mudan waxaan uga mahad celinayaa qof kasta oo soo daawaday qisada qiimeygii hore isla markaana la soo dhamaystay dulmiga iyo kibirka laga galo bani aadamka Allah waa uu mariyo qofka maalmaha kamid ah habaarka dhibanuhuna weligii ma habaabo dhamaantii waxaan jecelahay inaan idiga mahad celiyo waqtigiina quruxda badan aad ku daawateen muuqaalkan saaxiibaha qiimaha badanow weli haddaadan ku soo birin kanaalka ku soo biir si aad ula socoto qisooyin qurux badan halkan aan soo gelin doono ballanteenu waa bilowga qisada cusub sidaas iyo amaano Allah